qiyaas magaaladan oo dhiigga uu qulqulayo sidii webiga oo kale. Sanadku waa sanadkii 132 hijriga. dowladdii weyneed ee Umayyadeed way dhacday, waxaana Dimashq soo galay ciidan aan naxariis aqoon. waa ciidankii Cabbaasiyiinta oo uu hogaaminayay nin la oran jiray Cabdullaahi bin Cali. ninkaasi naanaystiisa waxay ahayd As-Safaax, oo micnaheedu tahay dhiig miiradkii. maalintaasi qof walba wuu dhuumanayay, culimmadii waa la laayay, qaarkoodna way carareen, madaxdiina waa la gowracay. laakiin waxaa jiray hal nin kaasoo magaalada dhex socday isagoo aan cabsan. wuxuu ahaa nin aan wadan ciidan, seef ama gaashaan. waa ninka markii uu soo galay qasrigii dhiigmiiradka, askartiisa ay ka yaabeen haybaddiisa. waa ninkii la yidhi waxa uu ahaa imaamkii dadka Shaam, sida reer Ciraaq ay u lahaayeen Abu Xaniifa. waa ninkii diiday inuu cadaalad darro ku sameeyo xitaa dadka aan muslimka ahayn. waana Imaam Cabdiraxmaan al-Awsaaci. soo dhowaada saaxiibayaal, aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Media. maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada Imaam Cabdiraxmaan al-Awsaaci. intaan muuqaalka sii gudagelin, haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo subscribe saar channelka. haddii aad hore noogu xirnaydna muuqaalka leegdhe oona sii shargare. qisadeenna waxay bilaabanaysaa sanadkii 88 ee hijriga, waxayna ka bilaabanaysaa magaalada qadiimiga ah ee Baalbek oo hadda ah dalka loo yaqaano Lubnaan. halkaasi waxaa ku dhashay wiil yar oo la yidhaahdo Cabdiraxmaan bin Camar bin Yuxmed al-Awsaaci. sida culimo badan oo waaweyn, Imaam Awsaaci noloshiisa waxay ku bilaabatay agoontinimo. aabbihiisa waxa uu dhintay isagoo yar, waxaana soo korisay hooyadiis oo keliya. reerkiisa waxay ahaayeen dad aad faqiir u ah. hooyadiisa waxay go'aansatay inay u guurto magaalada Beyruut si uu halkaas wiilkeeda uga helo fursad waxbarasho. waxaana la sheegaa in yaraantiisa uu ahaa wiil aad u deggan oo aan ciyaarin sida carruurta oo kale. nin arkay yaraantiisii ayaa yidhi, marnaba ma arkin isagoo ciyaaraya ama qoslaya qosol micno dara ah. wuxuuna u ekaa oday yar oo xigmad badan. Awsaaci inkastoo uu faqiir ahaa, Alle waxa uu siiyey hibo cajiib ah oo dhanka qoraalka iyo hadalka ah. wuxuuna bilaabay inuu u safro magaalooyinkii cilmiga sida Yamaama iyo Basra. intaasi kadib, Awsaaci waxa uu ku soo laabtay Dimashq iyo Beyruut isagoona ah buur cilmiya. wuxuuna noqday muftiga ugu weyn dhulka Shaam oo dhan. bal qiyaas waxaa la sheegaa inuu bixiyey in ka badan 70,000 oo fadwo noloshiisa, dhammaantoodna waxa uu ku qoray gacantiisa. Imaam Maalik oo ahaa imaamkii Madiina, markii uu maqlay magaca Awsaaci waxa uu yidhi waa imaam lagu daydo. Sufyaan as-Sawri isaguna waxa uu yidhi Awsaaci waa imaamka mu'miniinta ee xadiiska. Awsaaci ma ahayn oo keliya nin cilmi badan, ee waxa uu ahaa nin habeenkii oo dhan ooya. dadka xaafadaha Beyruut waxa ay sheegeen in markii waagu uu baryo ay arki jireen goobta Awsaaci uu ku tukado oo qoyan ilmo darteed. wuxuuna oran jiray, qofka geerida xasuusta kama walwalo culayska adduunka. mid ka mid ah sifaadkiisa ugu yaabka badan waxay ahayd karaamadiisa iyo deeqsinimadiisa. inkastoo boqorada iyo madaxda ay u soo diri jireen kumanaan diinaar, haddana Awsaaci marnaba gurigiisa kuma hooyan jirin wax lacag ah. isla marka uu helo wuu qaybin jiray. dharkiisa waxa uu ahaa mid fudud, cuntadiisana waxay ahayd mid yar, laakiin qalbigiisa waxa uu ahaa mid hodan ah. hadda waxaan soo gaarnay barta ugu xasaasisan ee nolosha Imaam Awsaaci. sanadku waa sanadkii 132 hijriga. dowladdii Umayyadeedta way burburtay. Cabdullaahi ibn Cali oo ahaa adeerka khaliifkii koowaad ee Cabbaasiyiinta ayaa soo galay Dimashq. ujeedkiisa waxa uu ahaa in la cirib tiro wax kasta oo ka haray reer Bani Umayya. waxa uu dilay kumanaan qof, wuxuuna qodqoday qabuurihii khaliifadii hore. wuxuuna ahaa nin aad u dhiig kulul. maalin maalmaha ka mid ah, Cabdullaahi ibn Cali waxa uu fadhiistay qasrigiisa. hareerihiisa waxaa taagnaa askar sidata seefo dhiigga uu ka da'ayo. wuxuuna yidhi, ii keena Awsaaci, waxaan rabaa inaan ogaado
mowqifkiisa ku aadan dowladdan cusub. Dadkii way naxeen, waxayna islahaayeen maanta waa maalintii ugu dambaysay ee imaamkii Shaam. Imaam Awsaaci markii loo sheegay in dilaagu uu u yeerayo, waxa uu xirtay maradiisa, wuxuuna qaatay ushiisa, wuxuuna yidhi, xasbunallah wa nicmal wakiil. Alla ayaa nugu filan, isagaana wakiil u wanaagsan. Wuxuuna u dhaqaaqay dhankii qasriga, isagoo aan ka baqayn. Awsaaci waxa uu soo galay qolkii Cabdulaahi ibnu Cali, waxa uu ku fadhiyey kursigiisii dheeraa ee carshiga, gacantana waxa uu ku hayay ushiisa. Askartiina waxay ahaayeen kuwo heegan ah. Boqorkii dilaaga ahaa ayaa Awsaaci ku yidhi, yaa Awsaaci, ka waran dhiigga aan daadinnay ee reer Bani Umaya, ma xalaal baa mise waa xaaraan? Su'aashu waxay ahayd mid geeri sababi karta. Haddii uu yidhaahdo waa xaaraan, madaxa ayaa laga goynayaa. Haddii uu yidhaahdo waa xalaalna, diintiisii ayuu iibsaday oo dhiiggii muslimiinta ayuu xalaal ka dhigay. Imaam Awsaaci waxa uu qaatay neef dheer, wuxuuna eegay indhaha boqorka, wuxuuna akhriyey xadiiskii laga soo wariyey nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Wuxuuna yidhi, dhiigga qofka muslimka ah ma bannaana in la daadiyo ilaa 3 shay midkood mooyaane: qof dil geystay oo la qisaasay, qof guur soo maray oo zinaystay, iyo qof diinta ka baxay. Boqorkii wuu carooday, indhihiisa ayaa gaduutay, wuxuuna ku celiyey su'aashii, wuxuuna ku yidhi, ii sheeg, khilaafadan aan qaadannay ma dhaxal baan u leenahay maadaama aan nahay ehelkii nebiga, mise Alle ayaana siiyey? Awsaaci waxa uu yidhi, haddii ay dhaxal ahaan lahayd, Cali ibn Abi Daalib, Allaha ka raali noqdee, ayaa idinkaga xaq lahaan lahaa, laakiin waa amuur uu Alla bixiyo. Boqorkii aad ayuu u xanaaqay ilaa uu ushiisii dhulka ku dhuftay, wuxuuna yidhi, miyaanan aniga dhexlayn nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee? Awsaaci waxa uu yidhi, gabar ma hor istaagto wiil, wuxuuna ula jeeday Faadumo Allaha ka raali noqdee iyo Cabbaas Allaha ka raali noqdee, dhaxalkooda waana dood fiqi ah oo qoto dheer. Awsaaci waxa uu yidhi, wakhtigaasi waxaan sugayey in madaxa layga gooyo, waxaana isku duubay maradayda si haddii lay dilo aana u cawra bixin. Laakiin mucjiso ayaa dhacday. Geesinimadii Awsaaci iyo runtiisii ayaa qalbiga boqorka cabsi gelisay. Boqorkii waxa uu hoos u dhigay madaxiisa, wuu aamusay muddo dheer, kadibna waxa uu yidhi, tag oo waan ku nabadgeliyey. Boqorkii waxa uu amray in Awsaaci la siiyo kiish dahab ah. Awsaaci wuu diiday, laakiin markii lagu qasbay wuu qaatay. Kadibna isla markiiba masaakiintii ayuu u qaybiyey, isagoo aan gurigiisa geyn. Maalintaasi Imaam Awsaaci waxa uu badbaadiyey sharafta culimada. Haddii aad u malaynayso Awsaaci in keliya uu u doodi jiray muslimiinta, waad qaldan tahay. Qiso kale oo cajiib ah ayaa ka dhacday buuraha Jabal ee Lubnaan. Qaar ka mid ah dadkii Kiristaanka ahaa ee halkaas degnaa ayaa diiday inay bixiyaan canshuurta. Guddoomiyihii magaalada oo muslim ahaa waxa uu go'aansaday ciqaab wadareed, wuxuuna amray in dhammaan Kiristaanka buurtaasi deggan laga eriyo guryahooda, kuwa dembiga galay iyo kuwa aan gelinba. Markii warkaasi uu gaaray Imaam Awsaaci, aad ayuu uga xumaaday, wuxuuna warqad dheer oo taariikhda gashay u qoray khaliifka iyo guddoomiyaha. Wuxuuna ku yidhi warqaddaas, sidee dad dhan loogu ciqaabi karaa dembiga shakhsiyaad yar oo kooban? Alla subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa ku yidhi, qofna qof kale dembigiisa ma qaado. Dadka aad barakicinayso waxaa ku jira kuwa aan waxba galabsan. Cadaaladuna ma ahan mid lagu kala sooco dadka. Markii warqaddaasi soo gaartay, dadkii Kiristaanka ahaa guryahoodii ayay ku nabadgaleen. Ilaa iyo maanta, dadka barta taariikhda Lubnaan way xushmeeyaan Imaam Awsaaci cadaaladdiisa darteed. Sanadkii 157 Hijriga, Imaam Awsaaci waxa uu gaaray da'da 69 sano. Maalin maalmaha ka mid ah, isagoo jooga magaalada Beyruut, ayuu galay goobaha lagu qubaysto ee loo yaqaan xamaam. Xamaamka xilligaasi waxa uu ahaa qol leh uumi kulul. Ninkii lahaa xamaamka, isagoon ogeyn in imaamku uu ku jiro gudaha,
ayuu albaabka xidhay wuuna tegey. Qolkii wuu kululaaday, uumigii ayaana batay. Imaam Awsaaci waxa uu isku dayey in albaabka uu furo, laakiin wuu xidhnaa, qayladiisana cidinama maqlin. Kulaylka ayaa sii kordhay, imaamkana waxa uu ogaaday in wakhtigiisii uu dhammaaday. Meel geesa ayuu fadhiistay, wuxuuna u jeestay dhanka qiblada. Cidina ma oga waxa uu akhrinayay daqiiqadahaas ugu dambeeyey, laakiin waxaa la helay isagoo sujuudsan ama u fadhiya qaab cibaado. Naftiina way ka baxday kulaylka iyo neefqabatinka dartiis. Markii dadkii Beyruud ay ogaadeen geeridiisa, magaalada oo dhan ayaa oyday. Waxaana la sheegaa in maalinta janaasadiisa ay ka soo qayb galeen muslimiinta, kiristaanka iyo yuhuudda. Dhammaantoodna way ka murugoodeen geeridiisa. Wuxuuna ku aasan yahay ilaa iyo maanta magaalada Beyruud, masjidka loogu magacdaray ee masjidka Imaam al-Awsaaci. Imaam Awsaaci waxa uu ahaa nin aan ka tegin madhab qoran sida Shaafici ama Maalik, laakiin waxa uu ka tegey dhaxal aan la ilaawi karin. Wuxuunana baray in geesinimada aysan ahayn in hub la qaato oo keliya, laakiin ay tahay in kelimadda xaqa ah laga hor sheego madaxda daalimiinta ah. Wuxuunana baray in cadaaladda Islaamka ay deeqdo qof walba, xitaa haddii uusan muslim ahayn. Haddii aad maanta aragto qof xaqdarro lagu samaynayo oo aad ka aamusto, xasuuso Imaam Awsaaci. Haddii aad aragto madax la koolkoolinayo iyagoo qaldan, xusuuso Imaam Awsaaci. Allah ha u naxariisto Imaam Awsaaci, annagana Allah inagu anfaco geesinimadiisa iyo cadaaladdiisa. Haddii aad ka heshay qisadan, ha ilaawin inaad subscribe saarto channelka, sidoo kalena muuqaalka aad like dhahdo.